halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah ra'iisul wasaare Roble oo dalka ka ceeriyo wakiilka Midowga Afrika Francisco Mandera una qabtay saacado kooban inuu dalka uga baxo filla Soomaaliya saraakiil ka socota oo la kulmay sirdoonka dalka Itoobiya kana dalbaday in ciidamada ku maqan dalka Eritrea laga soo gudbiyo xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya iyo arrin halis ah oo dadka qaarkiis ay ka saadaalinayaan inay ka soo socoto dhinaca Itoobiya gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo soo saaray war dhabar jab ku ah ra'iisul wasaare Roble iyo guddiga doorashooyinka fiid xukuumadda Soomaaliya oo 12 milyan oo dollar gacanta u gelisay dawladda Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo baaq u diray beesha caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsan ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV haddii ay tahay markay kugu horeysa fadlan ugu soo biir oo ha moogaanina subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqota asxaabta ku xiran mahadsanid ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dalka ka ceyriyay wakiilka Midowga Afrika u qaabilsanaa Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dalka ka ceyriyay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjira Francisco Mandera wuxuuna u qabtay inuu dalka uga baxo muddo 48 saacadood gudahooda dawladda Soomaaliya waxay u aqoonsatay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjira Francisco Mandera inuu yahay shakhsi aan dalka laga rabin asagoo ku lug yeesha arrimo ka baxsan shaqadiisa wakiilka Midowga Afrika waxaynu faraynaa inuu 48 saacadood dalka uga baxo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka codsaday Midowga Afrika inay dib ugu yeerto Danjira Francisco Mandera oo u hoggaansamo codsigan waxay sidoo kale ay soo dhaweynayaan hawlgalka cusub ee ADMIS waxayna sugayaan in lala shaqeeyo madaxda cusub ee hawlgalkaas waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa ayaa lagu yiri warka ra'iisul wasaaraha hawlgalka cusub ee ADMIS waxaana soo dhaweynaynaa in la shaqeeyno madaxda cusub ee hawlgalka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa faahfaahin ka bixin ku saabsan arrinta uu ku lug yeeshay Danjira Mandera balse waxa la rumaysan yahay in ay tahay inuu ku lug yeeshay arrimo ku saabsan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin midooyinkii ugu dambeeyay ayaa lagu eedeeyay in Francisco Mandera uu saaxiib la ahaa filla Soomaaliya isagoo la sheegay inuu ka qaadan jiray dhaqaale joogto ah ceyrinta Danjira Francisco Mandera ayaa timid 5 bilood kadib markii sidoo kale dawladda federaalka ay ceyrisay ku-xigeenkii ergeyga gaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Molonko waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo Soomaaliya ku jirta xilli xasaasi ah filla Soomaaliya ayaa la kulantay saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka dawladda Itoobiya waxaa soo food saaray qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed walwal weyn oo ku aadan kulamo xasaasi ah magaalada Doolow ee gobolka Gedo ku dhaxmaray saraakiil sarsare oo ka tirsan filla Soomaaliya iyo sirdoonka Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya sirdoonkeeda xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo ah doorane aan wali qaadan sharciga xildhibaannimo ee shahaadada iyo kaararka aqoonsiga ayaa degmada Doolow ee gobolka Gedo kula kulmay saraakiil sarsare oo ka socda sirdoonka dalka Itoobiya kulankiis waxa la sheegay in arrimo u gaar ah u tagay gobolka Gedo isla markaasna safarkiisa waxa la sheegay inuu yahay mid filla Soomaaliya ay wakiilatay warar madax bannaan oo aynu ka helnay magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa ku waramaya in saldhig military oo ku yaala degmadaas ay ku kulmeen General Tashuma Ayolo iyo sidoo kale kulankiis oo sargaal ka tirsan sirdoonka Soomaaliya generaalkan waxa uu sidoo kale ka tirsan yahay dawladda Itoobiya labada nin ee ka kala tirsan sirdoomada Soomaaliya iyo sidoo kale midka Itoobiya waxa la sheegay inay ka wada hadlaan arrimo quseeya labada dal ila wareedyo muhiim ah oo ku sugan gobolka Gedo ayaa dunida TV u sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen siday suurtagal ku tahay in ciidamada tababarka u jira dalka Eritrea laga soo gudbiyo xuduudka Itoobiya kadibna gudaha loo soo geliyo Soomaaliya si faahfaahsan looma bixin arrimaha ku saabsan macluumaadka kulanka balse arrintani waxay baqdin xoogan durbadiiba gelisay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo daneeyaasha Soomaaliya kuwaas oo aaminsan in farmaajo iyo saaxiibadiisa ay damacsan yihiin inay mar kale dalka qalalaasa gariyaan iyo afkambi ku qabsadaan
12 Abriil xuska maalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Kulanka dhaxmaray labadan sargaal ee ka dhacay Doolow ayaa ku soo aadaya iyadoo uu kulana sheegay inuu tagay magaalada Doolow arrimo la xiriirta wax ka qabashada abaaraha iyo sidii uga caawin lahaa, balse arrintaas ayaa la sheegay in ay tahay wax kama jiraan oo uu kulana filla Soomaaliya ay wakiilatay in uu kulan kula qaato magaalada Doolow saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Itoobiya, maadaama lagu fahmayo haddii la keeno saraakiishan gudaha Soomaaliya oo ay dad badan isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada filla Soomaaliya. Gudoomiyihii horeete ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa soo saaray war dhabarjab ku ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Waxa uu sheegay Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo shir jaraa'id qabtay in xaaladda ka taagan dalka ay tahay mid aad looga xumaado, asagoo sheegay in ra'iisul wasaare Rooble looga baahan yahay inuu xalliyo tabashada Koonfur Galbeed ay qabto. Waxa uu sheegay in tabashadaas haddii aan la xallin aysan dalka ka dhici karin doorasho. Maruu ka hadlayay dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dalka, waxa uu sheegay in haddii la dhaariyo xildhibaanada iyadoo ay ka maqan tahay Koonfur Galbeed aysan taasi ka turjumayn dalka horumarkiisa oo ay tahay maamul goboleedyo isku tagay oo samaysta dhaar xildhibaano balse aysan dalka oo dhan u dhamayn. wuxuu meesha ka saaray in xildhibaanada cusub ee buuxiya shuruuda isla markaasna maalinta 14 Abriil la dhaariyo inay dalka wada matali karaan, asagoo ka dhigay xildhibaanadaas inay yihiin kuwa beela gaar ah matala. Mursal waxa uu sidoo kale uu sheegay in ay Koonfur Galbeed qabto dood u baahan in la xaliyo madasha wada tashiga qaranka, ayuuna baaq u diray asagoo doonaya inuu soo nooleeyo maadaama meesha ay ka sii baxayso. wuxuu ku baaqay inay muhiim tahay inay ka wada hadlaan arrimaha u dambeeya ee xiisadu ay ka dhalatay iyo sidii loo xalin lahaa. wararkii macluumaadyadu waxa ay sheegayaan in dadaalada socda ay yihiin kuwa la doonayo in ay filla Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah dawlad goboleedyada go'aan qaataan, taasoo mar kale dhabarjab ku ah dawladnimada Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliya ayaa lacag 12 milyan waxa ay ku wareejisay Somaliland. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golihiisa wasiirada ayaa hore u ballan qaaday in Somaliland gacanta loo gali doono lacag 12 milyan ku dhow oo ka mid ah deeqaha beesha caalamka ay Soomaaliya ka hesho oo ay ku jirto Somaliland. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay lacag gaaraysa 11 milyan 700 oo kun oo dollar ay gaarsiisay Somaliland. lacagta waxa uu sheegay in ay gaarsiiyeen guddiga gurmadka suuqa Waaheen si wax loogu qabto dib u dhiska suuqaasi iyo sidoo kale dadkii ku hanti beelay in gargaar loogu fidiyo. lacagtan oo ku jirta qasnada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa hore u fasaxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib musiibadii weyneed ee dabkeed ee ka kacay magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa Waaheen. mid ka mid ah agaasimayaasha bangiga dhexe oo lagu magacaabo Xudubey Axmed Bashiir ayaa Facebook-giisa ku sheegay in lacagtan oo lagu daray 1 milyan oo dheeraad ah oo dawladda federaalka ay ugu deeqday gurmadka abaaraha, taasoo ka dhigan lacag ku dhow 13 milyan in gacanta loo galiyay Somaliland. ra'iisul wasaare Rooble ayaa hore u ballan qaaday in dawladda federaalka Soomaaliya iyo ganacsatada Muqdisho ay ugu deeqayaan dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay dabka lacag dhan 3 milyan, iyadoo sidoo kale tan la fasixi doono lacagtii deeqaha beesha caalamka ee Somaliland hore looga xayiray oo dhameed 11 milyan 700 oo kun oo dollar kuna jirta bankiga dhexe ee Soomaaliya. warkaad kala socoteen Dunida TV, waa intaas nabadgelyo.